qodobka koowaad ee qofku ku jecel astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah in uu waxa xun kaa waaniyo. xabiib waxaas wax fiican maahan, xabiib waxaas wax qurux badan maaha, iska daa, kuma wanaagsana, reerkeena uma wanaagsana, nolosheena uma wanaagsana. in maxay qofku uu kaa waaniyo wax kastoo xun. qodobka labaad, qofka markasta kaa hinaasa ama kaa cadhooda, laakiin mid baan rabaa inaan isla fahmo sidii kalsoonidoo kale tan labay kala tahay. hinaasa waxaa jira waali la yidhaahdo oo labada qof ku kala tagaan, iyo hinaasa jacayl la yidhaahdo. xaaskaaga ama ninkaagu markuu kaa hinaaso, gaar ahaan ninkaagu markuu kaa hinaaso, hadduu ku yidhaahdo oo ku furaya kaa maaha ka loo baahan yahay, maahan. markuu kaa hinaaso waa inuu jiraa waxaa ka weyn oo idinka idin dhex yaal. muxuu yahay? nolosha qoyskanaad ku jirtaan, guriganaad wada leedihiin. waa inuu kugu xeerin karo wanaagaad shalay samaynaysid. laakiin markaad xumaan samayso, hadduu ilaawo waxaad wanaag samaynaysid, waa hinaaska waalida la yidhaahdo, gaar ahaan gabdhaha u badan. weligaa waad nin xun ahayd, weligaa waad meerasan jirtay, weligaa waad nagaha kala raaraaci jirtay, waa ku aqaani anigu. xabiib weligay sooniga ku ag fadhiyey, maantood gabadh sawri la gelaysa aragtay baad ka xanaaqday. waa isnaqaanaa, intaad itusi jirtay in ka badan baa jirto oo iga qarsooni. gabdhaha ku badan, gabdhahan ka waaninaya. qofka markaad ka xanaaqdo ama ka cadhooto ama ka hinaasto, waxaa lagu xeeriyaa maxay? wanaagaad shalay ku arkaysay. laakiin wax ku dhiban markaad aragto waa inaad tusto qofkan inaad dhibsatay bas. laakiin gurigaagana dhaawac u geysan, iyo qalbigaagana dhaawac u geysan, iyo ka ninkaagana dhaawac u geysan. hinaasaha saxday kaas weeyaan. qodobka saddexaad, waa qof markasta rabaa inuu ogaado xaaladaada. tusaalahaan ninkaagu markuu guriga ka baxo, uu shaqo tago, oo shaqadii uu tago, hadduu ku soo waco oo yidhahdo xabiib xaafaddii waan tegay shaqadii, adigu waxaad dareemaysaa see tahay, maxaa guriga ka dhiman? sax, taasa bayn. gabadhaadu ama xaaskaagu marka aad ka baxdo hadday ku soo wacdo, haya xabiib xaafaddii ma tagtay shaqadii? haa. haya maxaad dareemaysaa? siduu ahaa intaad suuqa markaanka sii socotay, ma daashay? taasa point. saas weeyaan. laga yaabaa inaad iska qosashaanimo, laakiin noloshaan ka sheekeynaynaa waa qoyska, maahan iskaabulada, maahan. qodobka afraad, qof markasta kaala sheekaysta sida aad rabtaan mustaqbalka berri inaad u noolaataan, ubadkiina isaad u dhaqi lahaydeen. habeenkii xaaskaaga ama gabadh ama ninkaaga markaad isu timaadaan, hataad waqti ku bixisaan ood maanta dhan ka sheekaysataan. ninkii managerka noo ahaaba maanta gabadh shukaansado iyana way diidayo, mid bajaajla aan soo raacaybaa taambuu cabayeyo, laba islaayeenoo laba baabuur baa isku dhaco, ciidamadii amisom baa halka mariyay, mid bay jiireenoo maxaa kaa galay? war gurigaagii baad joogtaa, nolol xasiloon baad ku jirtaa, xaaskaagii baad la joogtaa, dhabteedaad ku fadhidaa, laabteedaad ku fadhidaa, nolol xasiloon baad ku jirtaan, waxbaad cuntay, waad dheragtay, waxaad ku jirtaa nolol degan. xabiibi mustaqbalka waxaan rabnaa inaan meel heblaayo tagno, raaxaysano, dalxiis meelaha u tagno. ubadkeenna waxaan rabnaa inuu nolol fiican ku noolaadaan. caruurteenna ma rabo inaan ku qaylino, caruurteenna ma rabno inaan niyad jebino. xabiibi haddii ilaahay gacanteeda wax soo geliyo, boqorad baan kaa dhigan lahaa. taasi point. waa kaas qofka inuu kaala sheekaysto wax kastuu rabo mustaqbalka inuu kugula noolaado. laakiin maanta dhan hadduu kaaga sheekeyo wax magaalo ku soo arkay, intaa cashaynaysaan baaba ka badan inuu kuu sheekeeyo taas. laakiin hadduu sheeko kaaga dhiga dhib waa. haddaa markaa keliis ku noqotaan intaa sheeko kaaga dhigo dhib waa.